African leaders, we don't need to be invited anywhere to go and address our problems without first inviting ourselves to come together to tell each other the actual truth that we must tell each other about our serious problem. madaxda Afrikaanka waa inaan isugu nimaanaa kulamo gaar ah oo anaga noo gaar ah ma ahan in aan aadno kulamada markasta ay noogu yeeraan iyaga oo ay doonayaan inay noogu meeriyaan danaheena waa in anagu aan qabsanaa kulamo noo gaar ah si aan uga wada hadalno dhibaatooyinka anagana haysta ee soo jireenka ah. For me, when I'm watching on television and I find our leaders who should have been working together all along to address these problems that commonly affect their countries, wait until they are invited to go to Europe to sit there and just, it's like they are made to sit down and address their problems. Why does anybody wait for that? Kasta waxaan TV-ga ka arkaa madaxdeena oo u sii dhoofaya una sii kala ordaya Yurub. Iyaga waa loo yeeraa, laakiin maxaa laga wada hadlaa? Imagine wadan yar oo ku yaala qaaradda Afrika, Madagascar, ayaa heshiis amni oo dan isdhaafsi ah la galaya Faransa. macquul ma tahay sidee wadan yar oo ku yaala qaaradda Afrika ay maalin quutaan maalin qadaan noloshooduna aan isku mid ahayn heshiis isla eg oo dan isdhaafsi ah uu la gali karaa wadan ku yaala qaaradda Yurub waliba wadankii gumeystay. What image does it even give about us, about Africa? In fact, the image it gives is that we are not there to even address these problems. We are there for a photo opportunity. We are happy to sit there in Paris with the President of France and address and just talk about addressing problems. It doesn't make sense that our leaders cannot get themselves together to address problems affecting our people. It doesn't make sense. dalkan oo dhinacyo badan taabanayay madaxweyne Paul Kagame ayuu ka jeediyay shir African France Summit oo la yiraahdo oo sanadkiiba mar la qabto oo ka dhacayay caasimadda dalka Chad. Waxa uu ku soo gabagabeeyay madaxdeena Afrikaanta ahi sanad kasta bil kasta ama toddobaad kasta diyaaradda ay sii saaran yihiin waxay aadaan Yurub wax kale oo dan ah iyo wax cawaaqib ah dadkeena uma soo kordhiyaan kaliya waxay soo helaan fursad ay sawir ku galaan fursad ay casho qaali ah ku cunaan fursad ay ku fariistaan hoteelada Paris sawirana ay kula soo galaan madaxda Yurub hase yeeshee totally ma jiraan wax dhab ah oo laga wada hadlo oo dawladaha Yurub iyo inagu aan ka wada hadalno maxaa yeelay buu yiri isku nolol kuma noolin isku caqabadana ma haystaan isku problem ma nihin isku xalna ma noqon karno waayo isku dadna ma nihin isku baahina ma nihin isku cimilana kuma noolin isku juqraafina ma degan abqarigan hogaamiye dalka Rwanda ayaa la yaabay siyaasadda uu ku hogaamiyay dalkaas waxa uu caan ku yahay barnaamijkiisa caanka ee Pan-Africanism-ka waxa uu jecel yahay midnimada Afrika oo uu fagaara kasta ka sheego odaygan asal ahaan lagu sheego inuu ka soo jeedo Soomaalidii luntay ee sheegta qowmiyadda Tutsi ee dalkaasi maamusha ayaa la sheegaa inuu yahay nin aad u xigmad badan. Mr. Paul Kagame madaxweynayaal badan ayaa sidan reer galbeedka farta ugu goday oo islaam ahaa kuwaas oo laga waraabiyay wabiyaal naareed oo ay ku fureen reer galbeedku kadib markii ay jaxiimooyin uga fureen wadamadooda. waxaa la xasuustaa qadaafigii hadalka kulula ee gilgili jiray shirarka jaamacadda Carabta iyo shirarka qaramada midoobe. waxaa la xasuustaa runsheegihii Saddam Hussein oo mar qora saaxadda laga waayay. haddase Paul Kagame ma ku soo duuli doonaan reer galbeedku hase yeeshee su'aasha isweydiinta leh ee qof walba maskaxdiisa ku soo dhacaysa ayaa ah inaanu Paul Kagame ahayn qof muslim ah. yes kuma soo duulayaan ilaa ninkan wuxuu rumaysan yahay inuu Ciise ilaah yahay. subhanallah. okay ninkan waa gaal kaliya halka fursad ay gaaladu ku deynayaan uguna seeta dheereynayaan waa inuusan islaam ahayn. hadaba barnaamijkan maxaad ka fahantay haddii aadan wax ka fahminna maxaad is leedahay inaan ka soo jilcino oo fikrada aad noo kordhinaysaa barnaamijyadeena dambe. ayaamahan dambe waan idinka mashquulay asxaabay garaal noqda hase yeeshee hadda wixii ka dambeeya
barnaamijyo xiriir oo isdaba joog ayaan soo gelin doonaa halkan waa Umada Media nagu soo bir oo nala joog